Hargeysa. Hargeysa waxay martigelisay showgii ugu shacbiyada badnaa sanadkan oo ay qabsatay fanaanada caanka ah King Jamac. wacdaraha fanaanadu ay ka dhigtay Hargeysa waxa uu ahaa mid xiise gaar ah u lahaa reer Hargeysa marka loo fiiriyo sida loo soo camiray hoolka oo cidhiidhi dartiis boqolaal qof ay banaanka ka daawanayeen. dad fara badan oo ka cadhooday go'aanka lagu joojiyay showga ayaa goor sii horeysay sii camiray hoteelka caanka ah Royal Plaza waxayna fanaanada uga dhignayd mid ka mid ah showgii ugu lacagta badnaa ay qabato sanadihii u dambeeyay. go'aan wasaaradda diinta iyo awqaafta Soomaaliland ay soo saartay ayaa lagu sheegay in gebi ahaanba la joojiyay showgii ay Hargeysa ay ku qaban lahayd King Jamac. arrinkaasi waxay dad badan ku abuurtay walaac xoogan, laakiin wasaaradda ayaa u cuskatay qodobo aan horey loo arki jirin, taasi oo dad badani ay ku macneeyeen in uu ahaa beegsi ay ka dambeeyeen fanaaniin ka xumaaday imaatinka King Jamac ee Hargeysa. wasaaradda warfaafinta oo u xilsaaran arrimaha dhaqanka ayaa kol dambe fasaxday sababo la xidhiidha in wasaaraddu ay leedahay go'aanka fasaxa iyo joojinta. DJ Subeer ayaa si weyn uga shaqeeyay arrinkaasi, wuxuuna mahad ballaaran gaadhsiiyey cid walba oo ka qayb qaadatay in la fasaxo showgan. shacabka Hargeysa xaleeto si isku mid ah ayay u soo dhaweeyeen King Jamac iyagoo u sheegay inaanay raali ka ahayn joojintii showga, laakiin ay mar uun rajeynayeen in King Jamac Hargeysa ay ku qabato bandhig faneed. fanaanada iyadana xalay waxay u ahayd habeen xiiso badan. taariikhda waxay ugu xisaabsaneed mid ka mid ah habeenadii ugu wanaagsanaa marka la fiiriyo bandhigan oo lagu tilmaamay showgii ugu lacagta badnaa dhowaanahan ee la qabto. waxay sidoo kale mahad ballaaran gaadhsiisay dhammaan shakhsiyaadkii ka shaqeeyey inay Hargeysa ku qabato bandhig faneedkan. haddaba adigu ma ka mid ahay dadkii ka qayb galay habeennimadii xalay bandhig faneedka? xalay ka qayb galay bandhig faneedka xalay galay taariikhda showgii ugu saameynta badnaa sanadkan?